السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرday soo dhawaada waa buuggeena tarbiyatu islaamiya. Waxaan ku jirnay waxdada shanaad. Darsigeeda labaad oo ka hadlayay aayada kamida suuratul ahsaab tafsiirkooda. Intii ugu muhiimsaneed waynu soo qaadanay casharkii ku saabsanaa aayadahaas. Gabagabadii waxaan qaadanaynaa casharka ku hoos jira ciwaanka ah maa yustafaadu min al-aayaat. aayadaha waxa laga faa'iidayo. aayadihii aynu soo qaadanay waxyaalaha aan ka faa'iidaysanayno, macnaha aynu kala soo dhexbaxayno 6 qodob ayuu ku soo arooriyay. bayaanul maxaarim, maxaarimtay in la cadeeyay alladina kuwaasoo lilmuslimati haweeneyda muslimada ah ay u banaanayd an tukhaatibahum inay la hadasho biduuni xijaabin iyadoon xijaab xidhnayn. bayaanul maxaarim, maxaarimtii in la cadeeyay alladina kuwaasoo lilmuslimati haweeneyda muslimada u sugnaaday ay u banaanayd baa laga wadaa an tukhaatibahum inay kula hadasho biduuni xijaabin xijaab la-aan. oo waa kuweed maxaarimteedii iyo waxweeye aynan waajib ahayn inay kasoo xijaabto, sida aabayaalkeed, wiilashii iyadu ay dhashay, waxa weeye wiilashii walaalaha ahaayeen, wiilasha walaalaha ahaayeen ay dhaleen eedada u ahayd, kuway habararka u ahayd, kuwaas iyada laynoo cadeeyay. 2 al-amru bitaqwa, in la is-amray alla ka cabsi, iyo wawaciidillaahi allah oo u goodiyey liman laa yattaqiihi cidda aan ka dhowrsan ka cabsan fii maxaarimihi waxyaalaha uu xarimay. iyadana taas ayaan ka qaadanaynaa. waxaana ka qaadanaynay allah subxaanahu watacaala wakiilha wattaqiina allah ka cabsado dumarow, saasa allah subxana wataala leeyahay. ka saddexaad aan ka qaadanay waxa weeye bayaanu sharafi rasuuli sallallahu alayhi wasallam, rasuulka sharafkiisa oo la cadeeyey, wa wujuubi salaati wassalaami calayh, inay waajib tahay in lagu saliyo nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. iyadana waxaan ka qaadanaa yaa ayuha alladina aamanuu salluu calayhi wasallimu tasliima ayaan ka qaadanayna. 4 bayaanu maa shay in la cadeeyo tacaradu lahu uu waajahayo man qofkii yu'dillaaha alla dhibaya wa rasuuluhu rasuulkiisa, oo muxuu wajahayaa oo min qadabin cadha ah iyo wacadaabin cadaab. iyadana xagee baynu ka qaadanaynaa? waxaynu ka qaadanaynaa aayaddii allah subxaanahu watacaala uu inanaha ina aladiina yu'duuna allaha warasuulahu lacanahum allahu fi dunya waalaakhira wa acadda lahum cadaaban muhiina. 5 bayaanu miqdaari maa shay qadarkiisa in la cadeeyey yataxamaluhu uu xambaaranayo man qofkii yu'di lmu'miniina dadka mu'miniinta ah dhiba, bilqowli qowl ku dhiba, wuu xamanayaa, wuu caayayaa, ow amase bilficli ficil ku dhiba, gacantiisu wax uga geysanayaa. kaas isagana allah subxana watacaala uu sheegay oo qadarku waa maxay? faqad ixtamaluu buhtaanan wa ithman mubiina. taas ayay ahayd qadarka kaasuu ahaa. 6 wujuubu tasaturi, inay waajib tahay inay is-asturaan. wujuubu tasatur, is-asturiddu inay waajib tahay, iyo walxijaabi wa lubsul xijaab, xijaab inay u xidhato lilmuslimati haweeneyda muslimada ah idaa waqtigii kharajad ay u baxayso lixaajatihaa xaajadeeda ay u baxayso. wujuubu tasatur, is-asturku inuu ku waajibay, iyo walxijaabi wa lubsul xijaabi, xijaab xidhashadiisa lilmuslimati haweeneyda muslimada ah dheh idaa waqtigii kharajad ay u baxayso lixaajatihaa xaajadeeda. iyadana maxaan ka qaadanaa? yaa ayuha nabiyu qul liazwaajika wa banaatika wa nisaa'i lmu'miniina yudniina calayhinna min jalaabibihinna. taasaan iyadana ka qaadanaynaa. kaasi waa 6 qodob ee uu ku soo arooriyey waxyaalaha aan ka faa'iidaysanayno aayadihii aan soo qaadanay ee suuratul ahzaab. tadriibaat atadriibaadka halkan innaga inoogu qoran waa laga soo shaqayn doonaa insha allah.
كو هالكن وحون يبين عدي معاني الكلمات الآتية كلمة هن صوصة معنى يالكودا عدي كلمة واكوة الكلمة وينها كوس قرني وما ملكت أيمانهن يؤذون الله ورسوله احتملوا بهتانا وإثما مبينا يدنا كواس maxaa sameynaysaa halka ka horeysa kelimo horteeda waad aragtaa waxaa ku qoran macnaha marka kelimada macnaheeda ayaad iyada aayada ku hor qoraysaa qaybtiisa labaad tamriinka ajib amma yaati waxyaalahan soo socda ka jawaab ma hiya al-aaya maxay tahay aayada allati taasoo amara Allahu al-mu'miniin الله أو أمر المؤمنين تكافة دمانتود أن يصلوا إن يكسليان على النبي صلى الله عليه وسلم نبي يكسليان آيات وآيات دي أذا لقربا لابو ما معنى يدنين عليهن من جلابيبهن معنى هذا وامحي يضنا واتسوق ريساه صدح ما عقاب الذين كوي عقاب كود وامحي يؤذون الله الدبية ورسوله رسول كيس الدبية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله